بسم الله الرحمن الرحيم. halkan waxaan ku wareysanaynaa Cabdilaahi Maxamuud Aadan Garhaye oo ah doorka bulshada gobolka Togdheer. hal door bal ka waran waxaan ka wareysanaynaa xalay tolaga boos wuxuu ku dhawaaqay inuu furanayo urur siyaasadeed la magac baxay barwaaqo oo ka Itoobiya bay isku magaciini. hadal lahayd hal door. bismillah waxaan oran lahaa dadka boos waxa weeyaan bulshada maxay tahay Soomaaliland qof ay u baahan tahay waa siyaasi ruug cadaaya ilaa tii khaldantay 1960 ilaa iyo maxay toolay oo la soo shaqeeyay maalin walba arkayay maxay toolay halka wax ka qalloocdaan soddonkii sano Soomaaliland dhisnaydna siyaasadda ku lahaa saameyn ballaaran isla markaana dhismaha Soomaaliland qayb ka ahaa oo marba halka dhagax laga gelinayo toosinteeda iyo taladeeda wax ka ahaa أنا شخصيا أنا أمسنا إن حسب يجي ومدة مركي ودي إلا هكردي إسلام مركانس لا يسوق لابي السجل حسب يجي وضني أو السجل الصوص عارف السجل هوستل اللي حسب يجي ولا صوص عارف واقعت فرصتي سوق جاي نفس البحر وهرية ومدة وين لصعتها ونسود ويننا ما تهاجرت هذا عبد الله أنا ما تهاجرت حسبك أول تهاجرت ما شاء الله يا دكتور كمان ما laga yaabaa inuu soo baxay la qabto ururada tartanka ururada in doorashooyinka xadiiday warjada ma qabna inuu soo baxo saddex xisbiyanu rajeynayna waxa weeyaan asaga iyo xisbiga ninka la yiraahdo Cabdirasaaq Ataash wato maxaa la yiraahdaa xisbigaas uu dictator wato iyo xisbiga kulmiye saddex xisbiga saadaliyaanu aad iyo aad baad mahadsantahay Maxamuud Cabdilaahi Maxamuud Aadan Garhaye qalbiga aad ku salaamaya bal bulshada burco waa ma daawanaysa maxaad oran lahayd iyagana bulshada burco in daawanaysa waxa leeyahay inaan moogaan Turgaboose waxa weeyaan xisbigiisa waynu la soconaa waynu nahay xisbiga barwaaqaynu ku gaari doonaa siyaasiga ee ruug cadaaga ee tala qabeenka ee reer Soomaaliland yaan loo kala hadhin ma leh. waayahay aad iyo aad baan ku salaamayna.